bal warna sii adiga ma jid waaqaa ku ciyaari doona ma geri kombe wax leeli sheegay habar gidir waa la waday laftirkeeda meeshan caadi waay we are all of us waxaan wadanaa flows oo kala duwan qof qabiilkiisa kaliya flow gareeya ma jiro haddana markay game tagto warma beenaan sheegaya asxaabe run ii sheega markay baashu game tagto qof walba qofka dhiiggiisa la fakada dhiigga iyo dhacaanka waa la ogyahay game friendly waaye asxaab waaye waa ogahay laakiin dadkani ayuutay garaan macnaha ayuutu gasca la isku darsadaa gabadheen iyo xaggaas joogta adiga marka annaga waa wareersanahay aniga iyo royal hadda meeshaan hadda isku aragnaa laakiin macnaha aniga royal aba kala shakisanba waxay fahansii maxay soo dhawow horta garyaqaano oo igu qoslisay sacawada maxay dhahdo meeqa qabiila ku ciyaari doonta igu dhaw su'aashaas aad daba raacay kaaga jawaabeen aniga may waa yaabana meesha fiiri horta qabiil ma jiro I know gabar qabiil ma tiid aniga taa ka aqaano dad asxaabnimo isku bartaanahay marka runta ka hadlo waay waxaan kugu bartay gabar meesha iska baashaasha dhalinyarada ka qoslisa xigmado badan soo gudbida fanaanad ah aan inta kugu bartay horta waa intaas qabiilka iyo barnaaqda iyo waxaas kale waa iska gooni haddana bilcagsi xitaa waxaan arkay kaliibyo dad caano waaweyn ay kugu aflagaadeynayaan oo cirdigaaga meel looga dhacayo waa arkay ma sii raacin haddana bilcagsiga markaan arrinta gadaal u baaray anuu meesha aad gashid waa soo ogaaday oo dee qofku qasab maahan inuu dhaho anay ciddaasa ahay ani ciddaas aan la soo fariisto laakiin waxaa laga yaabaa dad maangaabaha jira oo kelmadaha lagu leeyahay qofku duusa ka hadlin oo hadal la yiraahdo ka aamuso mid kale la yiraahdo ka aamuso sometimes waxaa loo qaadan karaa qofku waxyaas lagu tilmaamayo inuu yahaba dadka qaar u qaadan karaa maangaabta intii wax gala waxay garan kartaa inaad qof xishoonaya tahay marka bal royal hay soo dhawow adigana bal ما أديات قريقان هرت آدم كوس سلامة يا فرتنا وسلامة يا قيارتي ذا هرت قفك أصون عن قبيلة أهين أنا عن قبيلة أهين حدنا مركي دور مر الواحد قدبو أو قبيل كيسي وحي سبين لغا شيغو إن أو متقانا أصغو أو عن قبيلة أهين إنه حدنا متقانا أو لأوغادو أو موجية مهم واي sometimes oo macnaheeda ma ahan quraanka lagu sheegay qabiilka waa la tacaarufo isgarasho waa in la isku garto sida dawladaha Finland Sweden Norway Mareykan la isku garto calamadooda ayaa Soomaalidu qabiilka isku garataa anagu hadda waa ognahay farta meesha ay jirto iyo waxa ay tahay waa ognahay iyo dadkeeda laakiin haddana waxa moodaa in laga been sheegay soo gariiqaan sheegay dad waxa jira hadii marta wax lagu dhaho oo mar lagu dhaho oo mar kale lagu dhaho oo mar kale lagu dhaho hadaad ka jawaabin wixii runa loo moodaa marka farta waxaan ka rabnaa walaalay inaa ciyaalka xaafadda taa waa ku ognahay inaadan qabiilista ahayn waa ognahay inaa meeshan qaf public figure ah oo dadkeeda la qaxwaysata inaa tahay waa ognahay waxaan rabnaa marka gari kombahan waa dad Soomaaliyeed gari komba ceeb maaha maxaa la yiraahdaa abu school inaa ahayd ceeb maahan gari kombahaas waxaa iiga daran waa qabiil Soomaaliyeed macnaha hadallo kale oo aflagaadaha xitaa aflagaadada waa gudbi doonaa laakiin midaan horta oo ugu daran waxa waaye oo aflagaadada xataa aqbalkeeda keenaa waxay tahay qafkii oo mataqaanaa la qariyay qabiilkiisa because qaf kasta meeshan oo caan ama public ah hadoos asagu qabiileysta ahayn dad waxaa jira qabiileystayaal ah oo mataqaanaa qafkooda difaacaya marka farta soo dhawaaw waxaan ka rabnaa ceeb maahan inaad tiraadid anuu reehebel ah ceeb maahan soo dhawaa farta horta martidayda cusub mase martida duuga aan dhaha soo dhawaada royal garyaqaan su'aalo fiican ay weydiiseen aniga horta gabar soo martidaydii naagnimadeydii af Soomaaligeega unbaa ku joogaa horta Soomaali waa ii Soomaali laakiin noloshayda anigee ma ciyaarin fiiriya ma taqaanaaye game intaanan ciyaarin ka horne aniga aflagaado badan baa isoo gaartay waxaan ku yiri caay badan baa isoo gaaray qabiilka waa la tacaarufo saa sheegtay laakiin qabyaalada xun ma fahmaysin qabiilka waa la tacaarufo maanta fanaan walba qabiilku galay iyo meeshu mataqaanaa ka soo jeedo waa la yaqaanaa laakiin qabyaalada xun aniga ahaantayda marka iska hadlo alxamdulillah rabbil caalamiin qofa dhalasho ka toogay ma jirta annaga barkidara ahay cayra waliba ahay ayaan la waliba ka sii ahay laakiin ma u sidar
laakiin dhegayso waxa aniga la yaabaa mararka qaarkood fuustooyinka meelaha la riixayo aflagaadada cayda aniga ee soo gaaraysa yaa maanta geri kombo waa qabiil Soomaaliyeed qolba inta la soo furtay baa gabar la keenay baa lagu lahay farta hooyaday mataqaanaaye baa soo korsatay oo habar gidira fartu waa geri kombe fartu waa saan fartu waa kidaa farta habar gidir ma waxa taas kaaga sii daranba waxa taas kaaga sii daran caawani habar gidir naga shidan tahay qabiil kale oo Soomaaliyeed aanu ma haysto kuma gafayo tolkay laakiin aniga runta waa u sheegi karaa dhagaa hala furo waxa taas kaaga sii daran habar gidir odagoodii ugu weynaa intuu meel soo fariistay ma hadlayo dhageyso video ba ina tusaya ina hadlo uma baahni hadal dhan maaha bal fiir waxba ina tusaya dhageyso وهذا قفهم كو أقوني السلام عليكم وليس كلهن تيك توغاس كا أركي مركو أركي أمتي سوماليات أو سومالي نمدا إيو متقاناي إن مسلم نمدا إيو ولا نمدا أقب بقود كسوا حانتي يا أو سا كو داونايان أو متقاناي ساس كو جعل مركو أركي مسير أو كمسيري يا إنها متقاناي أو كويرادو لخذي فيلان وشرموطو وصان وكذا إن لده لذا كبدو هبر كديرة أو تيك توك كود ترى منا إن لده بقرة دي هبر كدير وبقرات ليسو أنا مرة كخار كود ما حضره لكن صدق أنا أخو والله وبلا تلا وحبة محيريو منا إن لده وبقرات منا إن لده وشرموطو أو إلو إن لده يا dadka ka dhashay u taala cid kale uma taalo dadka ka dhashay u taala ma fahantay haddaba aan ku tuso marka haddaba aan ku tuso fiidiyooga ninka weyn ee waxaan ku yiri idhali kara 100 mar laab idhali kara wuxuu ku hadlayaa ku tusaya fiiri dhageyso fiiriya هدي نقدر في الأرض هوية حتى هدي أيد حتى هويتها هدي حتى أيد هويتها نقدر هدي نقدر في الأرض حتى أيد هويتها والله إني سوق قرتين بالله وتالله إنه مال أو مار أو صاره أو مال أو صاره إلهي كبس بديده متقنا استغفر الله قبل أبتيجي إذا صفور يا قبل وي أبتيجي إذا صفور استغفر الله هاي ماما إذا أبتيجي صفور أفرقشت لكن وياه هذا فيلن أيضا فيلن جيب حتى فيلن جيب waxa iiga jawaabtaan ninkan aqoonta ii leeyahay ma sheegi kartiin ani asaga assalaamu calaykum weligan isma dhihin isma naqaano dadka social media ku jira ya ayuu aniga ilaga mid yahay okay habar gidir ahaan aniga koro ilaga sheegtaa ma ii sheegi kartaa sababta ugu soo dhiirada asoo ii aqoonin ya aqoon ii lahayn anoo garab uga baahnayn waxba uga baahnayn tiktokas dadka ku jira dhalinyarada anoo geeskay kaga jiro oo kaga mid ah ma ii sheegi kartiin sababta ugu soo dhiiraday inuu aniga isoo caayo cimrigu jiro waa aragtiin ani isku fahmanihin sidoo ku keen intuu meel soo fariisto ya inuu dhaho dhaxda Finland ma sheegi kartaa okay sidee ku imaatay fiir xuma iga dhex geli qaano ani kulli waaba ka hadlayaa cawada qabiil isdaji may ما يقطع لما يسهل كاغا لما يسهل كاغا aniga gabar dhalinyara oo Soomaalinimadu ku weyntahay oo wadanimadu ku weyntaa ahay balse qabiilkaaga hala barto ceeb maaha qabyaalada ceeb Soomaaliyo dhan aniga ii safantahay qof walbana qabiil uu ka soo jeeda laakiin dadka aniga ka soo jeedo yaa inay maalin walba qabiil ii saarayaan maalin sharmuuto igu tilmaamaan ee sharafkeyga meel uga dhacaan ya maalin ay caayaan waxay rabaan ii adeegsadaan odagooda ugu weyn aniga saa ii soo caayo meel uu soo fariisto ya gabar kale oo gayaankeyga oo isku mataqaanay jufi isku laf ii sheeganaysan uu yiraa boqorad horta waxay u taalaa dadka aniga ka dhashay
habar gidiri u taalaa su-aashaas habar gidir ee u taala ayagaana kaga fadhiya ayagaana ka rabaa mataqaanaaye isheg maxaa la dhahaye jawaab ayaga uga fadhiya ma fahmaysaa ninaa ku aqoon kuu lahayn mataqaanaaye meelaa geshid iyo meelaa seexatid iyo waxaa gusid iyo waxaa gudid waraa haddii qabiil iyo mataqaanaaye iyo habar gidirnimo iyo mataqaanaaye wax walba ay wax tirayaan أنا ما تشعلي وحيابها أنا قدرت أخبط إلى ميلها كاش شيء ما تشعلي ولا إلا جرعان إلا عدادي إلا متقناي محل هاي متفان إيميلها أنا قاعونات يوحك استأجينه أنا تيك توك شيء يقول قد ما الأرض هلاص أنا جوا أفكي وأحرنا أو جا أمسنا وحيت هاي بريك ما لا جاية بقى إنا أمد الصومالية ميل أقصد بحذ ضدك هكلا في الدهنين أف صومالي وكهد لا ومسلم كأ tolkaa wax u qabato quraanka khariimka sheegaya qaraabadaada marka hore wax ka bilaw ma fahamtay aan intaas wala aamusna waxba ma aan sheegin oo shiba iskaga ahay maanta wax walba aan tolkay u qabtan meelshan kama aan sheegin oo kama aan cadeeynin oo waxa isdhahay tartiibtaada sabab Soomaalinimada iyo dadka Soomaaliyeed hadday ka u kala fog yihiin hasii kala fogeenin ani maadaama oga hadalkayga aan halka hadal kalaam aan inuu meel dheer gaaray maadaama oga saas ayadoo ay tahay qof aniga aqoon ii lahayn oo qol 2 mitir ku xiran oo habeen iyo maalin cabayaan ku yiri oo meeshuu tagaba aana iyo balaayo loo haysto oo saas mataqaanay asaga dhan wada dhiiqa socotay sidoo aniga igu soo xad gudbi karaa laakiin qof sidee looga bixi karaa qabiilkiisa miishay kartiin sidee qof qabiilkiisa looga bixi karaa ya miiga jawaabi kartiin su'aashaas sidee qof qabiilkiisa looga bixi karaa odagana ku soo haray ani waa ku ogahay fiyuuska ummadda Soomaaliyeed qalbigooda hantaane aniga ummadda Soomaaliyeed kalama wax waxeeyo Soomaali waa ii Soomaali hadirtaan ku leeyahay anoo naag habar gidira oo waliba cayra oo waliba ayaan le waxaan ku leeyahay Soomaali waa ii Soomaali ya maanta midka in adeerkaya iyo midka mataqaanay ma jirteenka ah iyo midka mataqaan gari koombaha iyo midka abgaalka markay ii imaadaan isku baahi ay noqdaan isku siba u waxeynaya u daaweynaya isku siba ugu cadaalad falaya isku siba ugu cadaalad falaya يا تطحنوا نلاشة كده عيجا ما سعري كران هدا كوشي جاي تطحنوا نلاشة كده عنيجا إيجا ما سعري كران وريا أنيجا هبر جدير هدا أنيجا سواء أفتر صدو بيد نخنا يا دتك تيك توك تشوجا لما كحمر دارها وكل تاجين ينو كالهايا أنيجا كسوتشي ذا ولقي أنيجا ما أفتر سم ما فهمتي أنيجا هدا سواء أفتر صدو متقانا دتك أكسو جدي ليش أنيجا أكسو جدو ما قرسمان وضد بنان كياله وضد بنان كياله كلها ما قرسمان ما فهميسا لكن سؤالك ويدينا مركا إن هذا الاستجابة بيعطل حنونه بعوضه والله وبالله اسمده نوشا انت نوشا قبيل ادو كدوديسا تيك توك سو غليسا hadalka aan kala helno Soomaalidu oo dhan waa karaal gelinaya laakiin aniga hiidka ay gaaray okay istaji waxaan rabaa su'aasha aan qabaa waxay tahay ninkan daar calasow intaan aflagaada iyo magac dil iyo nasabiid ka saar wax xumaan oo shakhsiyan labadiina ka dhaxeeyay ma jiray ورانيغا السلام عليكم حتى اسمدين اسمنا خانو ورانيغا رومال رامسبين انيغا كوركاس وان ka arki jiray inuu daahir cala sooya asoo iga arki jiray inaan farta xaje ah ma fahmaysa anna waan u ogaa nin habar gidiro oo waliba sacda oo laakiin waalan oo dumarka uu dhinaciisa dumarka dhinacooda ma taqaanaaye yaa ku adag oo dumarka mar walba hoosgay inuu yahay waa ogaani hadda way dhageysta marka horta maasha Allah gobonimo si sharaf leh dumarka laygama maro laakiin sani waa ogaa waraa fiir hal mar aan ka dhex galay dhageyso horta ma kaaga dagaa qolka hadalka aan kala helno dhageyso intuu meel soo galay ku dhameystireen أنا حالتي كعضي فرت واحد بيعرف دجي وأدري ما يا كسينا يا جريتان aan kala helno bal horta isdaji aan halka kala helno دجي فرت استجي ina adeer gabar boqorada oo habar gidira oo laandeera oo cayr quradkii habar gidira oo cayraha tahay anaan hadda kule hadii qof uu jiro astaan oo ah habar gidir adiga astaan noo ah boqorada tahay madaxa noo saaran tahay waxa weeye hadalkaasna sida aad tiri dabcan waxa weeye labada reer u yaala وانا قف إن كلمة noocaas lagu yiraahdo adigo aniga la yiraahdo wariya eray sharmuute gabar kale to gayaan keegana la yiraahdo waa boqorad waa ku bariya carabkayga waxyaabaha qaar ma soo qaban karo ma qaad istaji ana kula boqorada tahay geenyadeena tahay madaxa noo saaran tahay waxa weeye anu kulay dabcan gabar in adeerkeeda oo sharaf iga mudana tahay dadkuna waa ka fadhi karaan eray kaftana waa la isdhihi karaa
laakiin waxyaalaha qaar nasabiyadiisa qofka iyo sharaftiisa cirdigiisa qofka waa wax qaab dara ah waa wax aan la qaadan karin hadda waxaan ku leeyahay genyada ama boqorada ama astaan gabar habar gedir oo hadday jirto adiga ah 14 boqolkaana kugu raali gelinayaa wixii kaleetana waxa way tolka ka wada fariisanaya ama ka wada hadlaya arrintaasna waxa weeye halkaas ku qabooji royal aan sii doonaa hadalka royal qaado waayah abandul waa mahadsan tahay horta farta xaaji in adeertay horta waxa oo lagu geystay oo gafka ah oo aadan u qalmin oo qof weyn inuu ta soo istaago oo wax aadan istaahilin oo kugu tilmaamo oo afka iyaga xataa ka xishoonayo horta ceeb weyn weeye aad baan waxa mataqaanaa arrintaas asagana waxaan leenahay raaligelin ha ka bixiyo hadduu ka bixi waayana hadda tolkiis gudnimay qaadan doonaan gabar sharaf leh qiimo leh ehel ah tol ah in saa loogu gafaa waa doqonnimo weeye maahan dadnimo maahan naag cayraa tahay naagu kaama qiimo badna naagu kaama sharaf badna astaantii galmudug adiga waaye astaantii soomaaliyeed waa adiga naag sharaf badan baa tahay gabar qiimo badan baa tahay in unta qafta soo fariisto oo kugu gafo annaguna aanan ka jawaabin oo weliba nin kale oo dad kale ah horta annaga laftigeena ceeb bay nagu tahay laakiin maadaama aad dadka soomaaliyeed annaga aan ku arkaynay horta arrintaas saasaan uga gaabinay horta gabar walaasheenaa tahay waxaas waa ka xunnahay inaad naag cayar ah oo ree ayaanlaa oo ree weeli dheeraa inaad tahay wax shakiyoo ku jiraa ma jirto cid mataqaanaa shaksiyadaada iyo dadnimadaadana wax ka sheegi kartaa ma jirto haddaa adigu soomaalinimadaada iyo waxaaga joogto dad waxaa jira qabiile ah oo qabiilka mataqaanaa hoggaan u ah baa jira annagana mataqaanaa dhegaysamayno gabarteenna ah in sharmuuto lagu sheego mid kalena la yidhaahdo waa boqorad waa astaan cid aan ka dhegaysanayno iyo cid aan ka yeelayno iyo cid xadgudubkaa samayn kartaa ma jirto nin kaxniyo badanna ma jirto walaasheen annagaa kuu soo hoyanay annagaa cimaamada kugu tuurnay 100% gafkaas hadday ka garaabi waayaanna waxa weeye naag rabbi iyo dad leh iyo tol leh ayaa tahay arrintaasna daahir cali sow gogolaan kaga fadhinaa gabadhaa qabiilkeedana waa uu ku gafay oo qabiil aysan ahayn oo ka dhigay oo dadnimadeeda iyo cirdigeyga oo mataqaanaa been ka sheegay sorry hal mar aan kaa dhex galaa haye fiiri dhibaato ma lahan qabiil kaleetaha lagugu tiriyo yacni waa soomaali waa dad soomaaliyeed oo sharaf leh aniga maanta been kuuma sheegayo soomaali oo dhan qabiil kasta oo soomaaliya inay wada saman yihiin aaminsanahay aniga fikirkayga anaa iskale waxaa aaminsanahay anaa iskale ma fahmaysaa qabiil lagaa saaro qabiil kaleetaha lagugu tiro is okay soomaali waa soomaali laakiin waryaa in sharmuurto lagugu tilmaamo in lagu yiraahdo hebel basaan ku yeelay in lagu yiraahdo kan basaan ku yeelay qalad waay aqoontu iileeya maxay tahay may arrintaas horta walaashay waa iga dhex gashay horta arrintaas annaga cayar ahaan noo taalaa walaalaha saacadna waxaan leenahay hadalkaas gafka ah oo ninka odaga ah gabadha walaasheen ah oo ku yiri waxaan ka sugi doonaa inay ka garaabaan gabarteena ah oo boqorad ah oo gabar asluub badan ah in qaab noocaas loogu gafana wax macquula maahan annagu gabdha kuma gafno gabdha kale qabiil kale kuma aanan gafin midteena in la dulmiyaa ama lagu gafaana cid aan ka dhagaysanayno ama cid aan ka yeelayno xadgudubkaas ma jirto wax raba ha noqdo warku inuu cad yahay fiican 100% cimaamad baan kugu saarnay oo aan kugu turno walaashay hal mar kale aan kaa dhex galo waaya aniga saacad oo dhan ima aflagaadeynin laakiin shakhsi baa ku dhahay sax waa shakhsigu laakiin dad uu leeyahay dadkiisu adoo asagu garaabi waayo dadkiisaan waxaan ka codsanaynaa inay ka garaabaan dulmiga uu ku geystay maadaama qof public figure ah oo mataqaanaa uu yahay oo bulshada mataqaanaa qabiilkaas uu hogaamiyo in aduu ka garaabi waayo dadkiisu inay ka garaabaan ayaan uga fadhinaa hadduu ilaahay yidhaahdo annagaana isku laaban doona farta walaasheen 100% cayr ahaan iyo habargidir ahaanba waa kuu soo hoyanay gareeqaan haye gabadhaa cimaamada inaan saarno waa gareeqaanow gaf weyn ayaa loo geystay waana la dulmiyey
ها قريقان may سودو in adeer waa dhowahay farta horta waxa weeye waa gabadheena annaga gabdhaha habargedirna waa gabdha gaariyaala waana gabdha boqortooyo ah waana gabdha kundhaanya ah hal weliba fartu inay public figure tahay waxa u dheeriya inay gabar fanaanada tahay inay gabar bulshada u dhaxaysa tahay inay gabar mataqaa dadka dhalinyarada aaladda isticmaasha maaweelisa tahay dabcan gabdhaha way kala yihiin in adeer gabdha waxaa jira af dheer oo ragga ayagu la googoosta oo afka la gala oo dadka caaya taasoo kale taxtaa hadal waa la dhihi karaa waa su-aasha aan u weydiiyey in ayada isaga wax dhex mareen waxay caddaysay inaysan qof bini aadan isku xadgudbin intay aaladaas joogtay qofna aysan qabiilkiisa iyo nasabkiisa iyo cirdigiisa midna u gafin lagu haysto inay gabar public figurada tahay qof la daawada ay tahay bulshada qof ka dhex muuqata ay tahay sidaa darteedna loogu soo xadgudbay taas marka aad iyo aad marka muhiimaddu waxay tahay aniga waxa weeye ka shakhsiyan ahaan dee maadaama dee nin aaladda saameyn kula aan ahay nin mataqaanaa reerka maanta haddii la yidhaahdo nin lasoo qabanaya aan ahay gabadhuna ay tahay gabar ina adeertay ah waxaa kula ku aflagaadeeyey sacadna maahan cid kalena maahan nin iska sacaxo cabay weeye waa qof xayawaan ah oo aan garan xitaa carruurtaaday la eg tahay in adeer ka raalli ah waan kuley 14 arrintaasna waxa weeye tolka ka wada hadlaya raaligelin public oo mataqaanaa ummadooda maqlaysaan lagu siinaya saas waaye farta waxaan rajeynayaa inaad mataqaanaa aad qaada doonto farta inaad qaada doontaan rajeynayaa raaligelin oo public ah oo aas qabiil ahaan ah ayaan ku siinaynaa waa lagugu qaldamay waa lagugu gafay ninka odagana waxa weeye sow garyaqaan sheega weeye af saacadna nin ku hadla maaha af habargedir ama af hawiye qof ku hadla maaha qofka mataqaanaa ii sheeg maxaa la yidhaha ku dhiiraday adduunyadeeda iska haysata views ay haysataa eedada la jooga u dulmiyey oo ugu talagalay inuu mataqaanaa ku dhibaateeyo qof oo matalo oo adduun arag astaqfurullah gabar abtigeeda soo fuuray gabar abtigeeda iyadoo soo fuuray astaqfurullah bal hadda arag ninkaas si fiican u fiir soo fuuray aan fargasho laakiin waayahay aqal Finland ayda feeri jib maxay u tahay feeri jib down meesha ugu hooseysa maxay u tahay maamada dhaqda Finland maxay saa u tahay saana loo yeelaa anaa maamo lay dhahaa see u aragtaa reer kumantii la hadlooyaane saana loo yeelaa anaa maamo lay dhahaa waa kartara aan biyo ismarin waan kartara dulmi cad waaye xaashi caddo soo qabo xaashi soo qabo waa nin cayra soo qabo xaashi soo qabo dulmigan waxa weeye dulmi cad ayuu ninkan kuu geystay laakiin soomaalinimadaada iyo tiktok waxaa ku joogta markii laga soo tago dhiigaaga dadaa iskale ha dhiigaaga dadaa walaala idin salaamaya gariiqaan iyo royal iyo farta waa idin salaamaya dhammaantiin waxaa qaado buusku waa joogta umaleynaa qolka waa la socotaa waa la socdaa niyaho waa u jeedaa dhaqan xumada iyo awalba waana aqaanay aniga marka waxaa macnaha aad wax looga sii xumaada ah gabadha qofkii garab istaageeda lahaa oo cayr ahaayeen adeerkeeda inuu ayadii inuu waxa uu tala iska daayay inuu reerka ka saara uu yiraa ma ahaba marka niyo gudnimada meesha ka socoto waa u jeednaa wax la isaga haraana ma haddii gabadhan waxaa waaye qof dhashay ma dhuunto qof gabadhan reeray ka dhalatay haddii cid looga break qabanaya ma jirtee royalo waa u jeedaa dhaqanka meesha ka socdee waxaa ka yeeli lahayn annaga nalaga rabaa ma garatay waaya waxaas ceyray u taallaa haddee raaligelin waa inuu ka bixiyaa haddii kale waxay gaaraya arrintan inaan mataqaanaa tol u raadino oo an gogol fadhiisanay noqon doontaa sababtoo qof dhalinyaro ah oo danihiisa iyo arrimihiisa wata in lagu gafo oo qabiilkiisa laga saaro oo sharmuuto iyo dhilo lagu tilmaamo bisay usoo qaado si gashana kii oo marbarbar wuxuu dhahaa waa ku gashtay dadka hortooda ku leeyahay okiyaala caraggaada wata war waxaa quribkaa ummadda laga noqdo wakti majeerteega dhaqan xumaa hay ortay ilmaha iyagoo yar la fuulaan inuu
abti u ahayn waxaa kuu caddaynayso dhaqan fiilaha inuu sa astaqfirullah fiiriya aniga bay maqlaysiin aniga duqaada gabar kastoo adaali tiri waa qaatay gabar kasta oo adal dhahdo waa qaatay gabar kasta oo odaygu waayeelka duqa iigu yeerto waa qaatay fiir ila kala ka daran maaha laakiin dhaqan fiilan oo aniga 3 sano 4 sano iga sii weyn oo gacmihii dhammaadeen dhaqan fiilan horta gacmaha ma dhammaan adigu way kaa 20 jirsan yihiin do you see gacmahan ma dhammaan adigu way kaa 20 jirsan yihiin haddii loo baahan adaa lagaaga shaqeynayo hadda kuu sheegaya dhaqdi holanay ha sometimes aniga ninaa noqdaa marna naaga ah ma fahantay 75 waa iskaga filanahay nin ha waa si fiican iskaga filanahay waxay ijooji 3 sano iga weyntahay kulaha balka sheekay umada qaar oo dhunsan waxa laga dhadhacsiinay balka sheekay ana 3 sano ka weynahay waxay ijooji inaadeer waa maasan tahay fartay anigu ka sii tagaya haddii alla idmo arrintaas waa arrin iska cad arrin marqaatiyaal u baahanna maahan babliga lagugu gafay dabcan waxaan gabar u qaadmin baa lagugu qaaday arrintaasna waxa weeye waxaan rajaynayaa labada tol in mataqaanaa ay u taallo aniguna de nin walaalaho dhexdhexaadaan ka ahay dhexdhexaadka aan ka ahana gafkuna isma saarnay gabar loo gafay waxa ay lahayd ayaa waajib ku ah nimankaas mataqaanaa dee ninkaa uu matalayo banaanka kusoo daystay ayagaa looga fadhiyaa inay mataqaan kasoo gugal fariistaan kana dhaqaan gabadhaas waxaa lagu tilmaamay aflagaadada leh ee gafka ah ninka 60 jirka ah geesihiisu cad yihiin kelmadaha uu ku yiri mataqaanaa dee gafka ah nasabay ka saar kale ah sharafteedii cirdigeeda in lagu xadgudbay intaas badee dabcan tolbay u taalaa aniguna waxaan leeyahay inta dhankayga ah inaadeer waxaas iyo wax u dhow midna kuma qaadimaan boqorad baa tahay hadday jirto astaan galmudug iyo astaan habargidir qof ahna adiga oo farta ah guuleysaan ku leeyahay inaadeer macaanto waan maasantahay wasraacsanayna farta anna waa kaasii degayaa farta waxaan kaa rabnaa walaasheena horta tahay boqoradii habargidir waa adiga boqoradii hawiye waa adiga boqoradii soomaaliyeedna waa adiga gafka ninkaas oo kuu geystay mataqaanaa aan ii sheeg oo waxba kuu reeban oo cirdigaaga iyo sharafkaaga iyo dadnimadaada oo ku ciyaarayna tol bay u taallaa tolkaana mataqaanaa arrintaa ka jawaabi doono annagana waxaan mataqaanaa kaare la gelinaynaa in aan mataqaanaa ka soo daahnay arrintan walaashay waa maasan tahay guuleysaan ku leenahay madaxaa noo saaran tahay boqoradaa tahay qaf kuu gafi karaa ama qaf cirdigaaga iyo sharafkaaga ku ciyaari karaana ma jirto naag cayroo laandheera oo ayaan laa tahay hore u socaan ku leeyahay inaadeer guuleyso waa mahadsantahay thank you